inkasta oo la sheegay in abaartani ay muddo soo jiitamaysay haddana mar kasta waxaa jira in abaartani ay tahay mid iyadu soo noqnoqotay haddaba maxay yihiin asbaabaha kala duwan ee keena in abaartu ay soo noqnoqoto cabdiwahaab xuseen muumin waa aqoon-yahan heerka koobaad iyo heerka labaad ee jaamacaddaba ku bartay takhasuska la xidhiidha arrimaha dhinaca deegaanka waxyaabaha sababa inta ugu badan waxa weeye ugu horeeya horta tan afka qalaad lagu yiraahdo land degradation waxa weeyaan boholo iyo ka wada dilaacay biyihii markuu xilliga roobku yimaado haddii la maamuli waayo oo la xidhxidhi waayo oo la qaban waayo waxay keenaysaa dhulgo wax la yiraahdo land degradation afka qalaad lagu yiraahdo taasina waxay keenaysaa in dhulkii uu boholo isku bedelo laba deforestation afka qalaad waxa la yiraahdo waa dhirgoyn dhammaanba ilaahay wuxuu ugu talagalay sida dharka aynu u xidhannahay dhulkiisan dhirtaa amika aynu hoos fadhino in ilaahay uga dhigay dhirtii ilaahay huga uga dhigay deegaanka guud ahaanba khayraadka dabiiciga ah huga uga dhigay ayaa bini aadankii human activity-ga ama bini aadanka afcaasha ka imanaysa dhuxul baa loo bedelay oo dhirtii baa la jaray taasna saameyn bay keenaysaa xagga kale waxa overgrazing tusaale ahaan meeshii yareed ee baad lahayd ee xooluhu daaqsin lahaayeen xoolihii baa ka batay marka xooluhu ka bateen waxa ku dhacaya in cagtii ay ku dilaan oo dhulka uu noqdo dhul nabaad guur ama seedka uu ka tago way xaalufaysaa inuu calafkii markuu yaraado xoolihii abaartaas ay imanaysa